wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland oo ay weheliyaan saraakiil ka socota hay'adda FAO ayaa maanta ka dhagax dhigay dhul beereedka deegaanada Holholka iyo Wajaale xarunno lagu kaydin doono shinnida abuurka ah iyo mashaariic kale oo dhinaca horumarinta beeraha ah waxaana guud ahaanba mashaariicdan ay qayb ka yihiin mashruuc loogu magac daray Soma Seed Project kaasoo ay maalgelintiisa leedahay Midowga Yurub isla markaana ay fulintiisa iska kaashanayaan wasaaradda beeraha iyo hay'adda FAO dulucda guud ee looga dun leeyahayna ay tahay baadi sooca shinnida ama abuurka wadaniga ah ee dalagyada quudka asaasiga ah ee ay ka mid yihiin haruurka arabakhida iyo digirta waxaana wasiir Axmed Muumin Said oo dhagax dhigii deegaanka Holholka ka hadlay uu tilmaamay halkan waxa weeye guriga laga dhisay wax noqonaya runtii hool halkan waxaan ugu talagalnay wixii deegaanka awdal oo dhan ka soo baxa qaybta siirka halkan ay keeni doonaan dabadeedna halkan lagu kaydinaya dabadeedna siirka markaan soo ururino waxaan dib ugu qaybin doonaa beeraleyda sidaas oo kale ayaa dadka deegaanka mas'uuliyiin ka socotay hay'adda FAO madaxda degmada Boorama iyo badhasaabka gobolka awdal oo halkaas ka hadlay uu tilmaamay masiirka iyo hay'adda FAO labadaba waan uga mahadnaqaynaa waayo waa horumar beeraleyda iyo deegaankana waxaan ku waaninayaa ama kula dardaarmayaa inay ka faa'iidaystaan waxa weeye idinku dhinaciina inaad ka ilaalisaan oo wixii uu saddex geesood noqdo wasaaraddiina dhinac ka eegto dadkii deegaankuna ay dhinac ka eegtaan annaga FAOna aan dhinaca ka eegano sidaas lagu gaarayaa wax tayo leh in la dhiso ma aha intan oo kaliya balse dhagax dhigii mashaariicda horumarinta beeraha ee deegaanka Wajaale ayaa mas'uuliyiinta degmada Wajaale saraakiil ka socotay hay'adda FAO iyo badhasaab ku xigeenka gobolka Gabiley ee hadalka iska daba qaateen waxaan aad ugu faraxsanahay anigoo ka wakiila qoladayadii FAO sidii looga dhisi lahaa hoose ay cagafyadu galaan iyo store weyn oo siidka lagu kaydiyo waxaan wasaaradda u wada soconaa sidii gacmaha la isugu qabsan lahaayee infrastructure badan oo kaabaya wax soo saarka beeraha saacad wasiir waxaanu doonaynaa ama siidkeennii hore ha noqdo ama siidhadh kale oo wanaagsan ha noqdo meeshani waa inay noqoto meeshii dalagga Somaliland oo dhan laga qaybin lahaa arrintu ay noqoto runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa kaloo aad ugu mahadnaqaynaa hay'adda FAO مشروع نو في السنة آدية بنقوم نقلنا ساعات الوزير جزاكم الله خيرا wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha mudane Axmed Muumin Said oo isaguna mashaariicdan laga hirgelinayo degmada Wajaale ahmiyadda ay leeyihiin tilmaamaya ayaa yiri halkan maanta aynu dhagax dhigaynaa waa hoostadii cagafyada oo iyadaan maanta inoogu jira halkan dhismaha meelaha kaydka moogtahay siirka oo runtii aanu rabno inaanu soo celino siirkii waddankani lahaa waxaan doonaynaa gobolkan Gabiley oo dhan siirkiisii halkan baanu kaydka ugu dhigaynaa dadka deegaanku kaydka siirka halkan ay ka qaadan doonaan Cabdulla Ali Yusuf Home Cable TV Boorama adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida